Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dear students, welcome to Cilmi Online Academy. Ardayda qaaliga ah kusoo dhawaada Cilmi Online Academy. Casharka maanta waa casharkii labaad maadada xisaabta ee fasalka 8aad. Casharkan ma ahan casharkii inooga horeeyay ee buuggan xisaabta ah fasalka 8aad. casharkan waxaa ka horeeyay cashar kale, casharkaasi oo ahaa casharkii koowaad. casharkaas waxaan ku baranay urur guud iyo urur duleed. intaan casharkaas ku guda jirnay waxaan qeexnay urur guud, waxaan sidoo kale qeexnay urur duleed. urur guud waxaan dhahnay waa urur soo koobaya dhammaan ku tirsanayaasha ururada kale. si la mid ah urur duleed waxaan dhahnay urur duleed waa urur ku jira ururka guud balse aan ku jirin ururka la tilmaamayo markaas. waxaan kaloo ka bixinay tusaalooyin, waxaan ka shaqeynay layliga casharkaasi su'aalihiisa. casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa hababka loo qoro ururada. hababka loo qoro ururada. ururada waxaa lagu muujin karaa habab badan. ururada markii la muujinayo mise markii la qorayo waxaa loo qori karaa habab badan. kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah, balse laba ayaa ugu muhiimsan. labadaasina waa habka tixidda iyo habka astaan qeexidda. anta aan guda galin casharka maanta waxaan idin sheegayaa objective-ka lesson-ka mise ahdaafta aan ka leenahay casharkan. casharkan markaan dhammayno arday walbo waxaa looga baahan yahay inuu qeexi karo habka tixidda si la mid ah inuu qeexi karo habka astaan qeexidda. ardayga waa inuu aqoonsan karaa urur u qoran habka tixidda si la mid ah urur u qoran habka astaan qeexidda. ardayga waxaa kaloo looga baahan yahay in urur u qoran habka tixidda uu u bedeli karo habka astaan qeexidda. si la mid ah urur u qoran habka astaan qeexidda uu u bedeli karo habka tixidda. ardayga waxaa kaloo looga baahan yahay in xog la siiyay uu u qori karo habka tixidda si la mid ah uu u qori karo habka astaan qeexidda. ardayga waxaa kaloo looga baahan yahay in uu garanayo tirada kasiga ah iyo tirooyinka dhabanka ah. tirooyinka kasiga ah iyo tirooyinka dhabanka ah. casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa habka tixidda iyo habka astaan qeexidda, anagoo mid walba aan qeexi doonno, mid walbana aan ka bixin doonno tusaalooyin. waxaan ka bilaabi doonaa midka koowaad oo ah habka tixidda. habka tixidda. qeexitaanka habka tixidda waa hab ku tirsanayaasha mid mid loogu qoro sakalada dhexdooda iyada oo loo dhexaysiinayo hakad. habkan tixiddan ururka ku tirsanayaashiisa waxaa lagu dhex qorayaa sakalo. waxaa lagu dhex qorayaa sakalo iyada oo loo dhexaysiinayo hakad. meeshan laba shuruudood ayaa u taasha, labadaasi oo ah in ku tirsanayaasha ururka aad ku dhex qortid sakalo dhexdooda kadib aad u dhexaysisid hakad. labadan shuruudood haddii aad buuxisid ururka waxaad u qortay habka tixidda. tusaalada koowaad, ha waa urur. ha waa urur. ku tirsanayaasha ha waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 boqol 200 5,000 milyan 2 milyan 8 milyan bilyan trilyan. intaas oo dhan waxay ku dhacayaan saddexdan dhibcood 1 2 3. saddexdan dhibcood waxay ku tusayaan in ku tirsanayaasha ururka ha aan kaliya ku ekeen 4 balse ay jiraan tirooyin kale oo la soo koobi karin. marka ururkan ha qaabka loo qoray waa habka tixidda. waa habka tixidda. why sabab
because sababtoo ah waxaa lagu dhex qoray sekelo dhexdooda waayo calaamadan iyo calaamadan ayaa ah sekelo marka waxaa lagu dhex qoray sekelo dhexdooda shuruudii koowaad waa ay buuxiyeen kadib ku tirsanayaasha waxaa loo dhexaysiiyey hakad koow waa ku tirsanaa ururka ha labana waa ku tirsanaa ururka ha labadan waxaa loo dhexaysiiyey hakad waayo shuruudda ayaa ah in lagu dhex qoro sekelo dhexdooda iyada oo loo dhexaysinayo hakad markaad qoraysid waa inaad ku dhex qortaa sekelo dhexdooda kadib waa inaad u dhexaysisaa hakad koow hakad labo hakad saddex hakad afar hakad shan haddii aad qortid hakad lix haddii aad qortid hakad toddoba haddii aad qortidna hakad marka nidaamkan loo qoray ururkan ayaa ah habka tixidda tusaalada labaad ururka ba waa urur ku tirsanayaasha ba waa baay gedo nugaal hiiraan baay gedo nugaal hiiraan marka kuwan waa ku tirsanayaasha ururka ba waxay ku dhex jiraan sekelo shuruudda koowaad way buuxiyeen waa inaad ku dhex qortaa ku tirsanayaasha ururka sekelo dhexdooda kadib waa inaad u dhexaysisaa hakad baay hakad gedo hakad nugaal hakad hiiraan marka labada shuruudood waa ay buuxiyeen way ka baxeen marka ururkan habka uu u qoran yahay waa habka astaan qeexidda ururkan habka uu u qoran yahay waa habka tixidda